kala baro nidaamyadan xukun ee kala duwan. Boqortooyada waxaa taliyo boqor amba boqorad, waana nidaam ku saleysan reer, wiil iyo aabihii, gabadh iyo aabaheed, laba wiil oo walaala ah, saas ayaa la isugu dhiibaa. Waa dhaxal. Laakiin maanta nidaamka boqortooyo laba ayuu kala baxaa. Boqortooyo dastuuri oo boqorku yahay magacuyaal sida boqortooyada Ingiriiska iyo wadamada kale ee Yurub ee boqortooyada ah. Boqortooyada kale boqorku awood weyn leeyahayna oo isku xukuumadda dhan hogaamiyana waa sida boqoradan Carabta. Faa'iidooyinka uu leeyahay nidaamkan boqortooyo boqorku isku xukuumadda ka taliya waxa weeye doorashooyin dhaqaale fara badan ku baxay ma jiraan, xisbiyo mucaarad iyo muxaafid oo is-eryaryanayana male. Waana nidaam degan oo aan fawda ahayn. Ceebtiisuna waxa weeye nidaamkan boqortooyo waa la iska dhaxlaa, taasoo macnaheedu tahay xilka waxa iman karo qof aanan u qalmin oo daciifa oo siyaasadda dalka iyo dhaqaalahaba ku ciyaari karo. Dadkuna awood uma lahan inay iska ridaan, mana ay dooran ayagu. Dhaxal ayuu ku yimiday. Nidaamka dimuqraadiga waxa weeye waa nidaam ay dadku soo dooranayaan cidda maamulayso. Xisbi ha noqdo amba madaxweyne ay si toos ah dadku ugu codeynayaan ha noqdo. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxa weeye dadka ayaa dooranayo cidda ay maamulayaan. Xorriyad ay u haystaan inay doortaan cidda maamulayso. Ceebta uu leeyahay nidaamkan dimuqraadigana waxa weeye doorashooyinka markay xisbiyadu amba madaxweynuhu galayo wuxuu u baahan yahay in dadku ay yaqaanaan, taasoo macnaheedu tahay inuu ka soo muuqdo shanalada amba telefishinada kala duwan. Dhaqaale fara badan ayuuna u baahan yahay madaxweynahaas. Xisbigana wuxuu u baahan yahay inuu dhaqaale fara badan haysto. Dhaqaalaha intaa leegna waxaa deymiyo sharikadaha waaweyn, taasoo macnaheedu tahay xisbiga amba madaxweynaha marka uu xilka qabto si aan toos ahayn ay sharikadahani faraha ula soo galayaan. Waana dhibaatada Mareykanka ka jirto. Nidaamkan dimuqraadiga uu sii kala baxaa: nidaam jamhuuriya, nidaamka madaxtooyada, nidaamka baarlamaaniga iyo nidaamka federaalka ah. Nidaamka Republikaanka amba nidaamka jamhuuriga waa nidaam ay hal xukuumad dalka oo dhan ka wada taliso, yacni nidaam federaal ma ahan. Gobolladuna ismaamul gaara male, wax walba caasimadda ayaa looga taliyaa. Nidaamkan ceebtiisuna waxa weeye gobollada qaar haddii ay ka jiraan qowmiyado laga tiro badan yahay in luuqadooda iyo cirqi ahaan loo faquuqo, maadaama aysan lahayn ismaamul gaar oo dalku federaal ahayn. Ha u imaano nidaamka federaalka. Nidaamka federaalka waa nidaam uu maamul walba leeyahay xukuumad u gaara, baarlamaan u gaara, dastuur u gaara. Dabcan jeish u gaara ma lahan. Boolis iyo waxyaalaha kale waa ay yeelan karaan. Dalkani wuxuu leeyahay xukuumad markaziya oo jeishka gacanta ku hayso. Ninka meesha loo doortanana uu noqonayo mid caalamka dalkan ku matalayo. Faa'iidada uu leeyahay nidaamkan waxa weeye dalkaasi hadday ku nool yihiin dad aad u kala duwan oo kala qowmiyado kala luqada, inay mid walba gobolkiisa ismaamul u gaara u yeesho, ay dhaqaalahooga iyo xukuumadooda iyagu ishagaajiyaan. Ceebta uu leeyahay waxa weeye dowladda dhexe waxa laga yaabaa inay soo rogto qawaaniin amba siyaasad gobollada qaar ay kasoo horjeedaan amba ay diidan yihiin. Taasna waxay isku bedeli kartaa dagaal sokeeye sidii dagaalkii sokeeye ee Mareykanka. Ha u imaano nidaamka madaxtooyada. Nidaamkan madaxtooyada waa nidaam uu madaxweyne ka taliyo, madaxweynahana dadku si toos ah u soo dooranayaan sida Mareykanka iyo Faransiiska. Nidaamkan madaxtooyada ah hogaamiyaha dalka iyo golaha sharci dejinta waa ay kala duwan yihiin. Golaha sharci dejinta si gaar ah ayaa loo soo doortaa, waxaana laga yaabaa baarlamaanka madaxweynahan xisbigiisa in lagaga bato. Faa'iidada uu leeyahay nidaamkan madaxtooyada waxa weeye madaxweynaha muddaxileed ayuu leeyahay 4 sano 5 sano, taasoo macnaheedu tahay muddaxileedkiisa uu dhammaysanayaa. Baarlamaankuna kama dejin kara xilka madaxweynaha ilaa xaaladaha qaar oo naadir maahine. Ceebta uu leeyahay nidaamkan madaxtooyada waxa weeye madaxweynuhu awoodda uu leeyahay waxa laga yaabaa inuu isticmaalo mu'asasaadka kalena daciifiyo oo uu isku bedelo nidaam dictator. Jumlad baan rabaa inaan ku daro intaanan ka bixin nidaamkan madaxtooyada. Caqabadana hadda ka hadlay dalka Mareykanka ayaa xaliyay. Dalka Mareykanka waa nidaam madaxtooyo, waana federaal. Gobol walbana iskayuu isku maamulaa, dadkuna hub ayay haystaan. Taasoo macnuhu tahay madaxweynuhu hadduu isku dayo inuu awoodda dalka oo dhan isku wada ururiyo kadibna uu isku bedelo dictator, inay dadkan iyo goboladanba
dowladda la dagaalami karaan. Ha u imaano nidaamkan baarlamaaniga ah. Nidaamkan baarlamaaniga dalka waxaa ka taliyo xisbigii doorashada baarlamaanka ku guuleystay ninkii u talinayay ayaa dalka ka taliyo. Waana ra'iisul wasaaraha. Dalku madaxweyne uu leeyahay amba boqor uu leeyahay sida boqortooyada Ingiriiska, laakiin waa magacuun. Hadduu boqortooyo waa boqortooyo dastuuriya, hadduu madaxweyne yahayna waa xil sharafeed. Faa'iidada uu leeyahay nidaamkan waxa weeye nidaamkan hal nin kama taliyo. Nidaamkan baarlamaanka ayaa ka taliyo. Xukuumadda la soo dhisay haddii problemada dhaqaale iyo problemada kale ay xalin weydo, isla markaa yarba xukuumadda lama sugayo muddo xileedna ma leh. Sanad 2 sano dhowr bilood gudaheeda ayaa lagu ridi karaa. ceebta ay leedahayna wax kale ma ahan, waa faa'iidadeeda ayaa mararka qaar isku bedeli karta ceeb. Haddii mar walba xukuumaddii timaadaba la ridayo, dalku wuxuu galayaa khalalaasa siyaasadeed, mana degayo. Ha u imaana labada nidaam ee kali talisnimada, nidaamka oo halka qof ka taliyo iyo nidaamka ay xisbi ay ka taliyaan. Nidaamku halka qof ka taliyo, nidaamkan nidaam boqortooyo maahan, nidaam uu qofkani ka dhaxlayna maahan. Qofkani nidaamkan wuxuu ku yimid laba qaab, ama inuu afkambiyo askari ahaa, ama in si caadi ah loo doortay kadibna uu isku bedelay dictator kaligii taliya. caalamkan maanta nidaamka kale taliyaha ma sida boqortooyada, waa nidaam mar walba 5 sano amba 4 sano mar iclaaminaya in la doortay. yacni doorasho aan wax ka jirin ayuu qabanaya, kadibna waxa la leeyahay wuxuu ku guuleystay 98%. wuxuu ku fiican yahay dalku xaalad degan ayuu ku jiraa inta uu maamulayo. nidaamkan ceebta uu leeyahay amba dhinacu ku xun yahay waxa weeye nidaamkani dadka ayuu caburiyaa. dadku si xor ah uma hadli karaan, waxa ay diidayaan ma cabiri karaan, waxa ay rabaanna ma cabiri karaan. dictatorka dalka ha dhiso amba ha faqriyeeye, xilka waxa lagaga tuuraa afkambi amba kacdoon shacab. kadib marka uu xilka ka dega amba laga tuurana, dalku khalaalasa ayuu galaa inta badan. nidaamkan kale xisbi kaliya haata dalka dhan uu ka taliyo waxaa tusaale loogu soo qaadan karaa nidaamka dalka Shiinaha ka jiro, nidaamka xisbiga shiyuuciga. xisbiga shiyuuciga 5 sano mar wuxuu doortaa madaxweynaha. marka saa loo doorto, dadku ma dooranayaan, xisbiga ayuu kasoo dhaxbaxaya, xisbiga ayaa laga soo dhex dooranaya. marka saa loo doorto, wuxuu fursad u haystaa in mar kale la doorto, mar kaliya 5 sano markuu dhameysto dib haddii loo doorto 5 kaloo sane kadib kuma ceshan karo. madaxweynaha iskaga xukuumadda maamulo, iskagaana dalka madax u ah, laakiin xisbigani wuxuu awoodaa madaxweynaha inuu xilka ka rido. nidaamkan wanaagiisu waxa weeye wuxuu ku fiican yahay dalka waxa laga maamulaa hal jiho, hal xisbi ayaana ka jiro. ceebtiisa amba dhinacu ka xun yahayna waxa weeye nidaamkani dadka ayuu koontaroolayaa, dadka ayuu ilaaliyaa sida madaxda dictatorada ah.